باس مسك بلا بالله باس ما حكوري معنا إن أكو أفلي قديم أنا ما ضحك أجرا ولا ويل مدوقة سبب ما حدا حبط من اللي يقولوا ما حكينا من كمودة ولا أفلي قدوم بلاوي ولا لو جاجر المسلمين ترنادان أفرتين هالتان جاجر سوينا ماشين وافرون فرنت مالها هالكي موبيل وحلو جاجر يا لعت سعيد ما فهمت jaajarka waxa iska lahay aniga marxuumku ugu jiray saddex baas dhacday aniga laba baas kuma dhihin saddex baas dhacday marxuum maxamed farxaan cabdi isaga iyo saddex askari oo kala tirsanaa ciidanka asluubta waajibaadka qarankana u joogay jiidda hore gaar ahaan hoodka deegaanka Xaaji Cali ayaa fasaxay qaateen kadib u baxay inay suuqa ka dabaystaan taleefanadooda maadaama ay jirtay koronto la'aan iyagoo tagay dukaan yar oo lagu jaajareeyo moobilada laguna iibiyo bagaashka afartooda oo ku sugan goobtaasi ayna iska sugayaan hal jaajar ayaa waxa uu yimid eedeysana dable xoogga maxamuud xuseen siidow oo ka tirsan guutada 28aad Abu Cubayda ee ciidanka xoogga dalka isagoo bilaabay handadaad iyo buuq si uu u helo jaajarka oo markaasi ku jiray taleefanka marxuumka eedeysanaha oo istusay inuusan sugi karin feelka ayaana qaatay go'aan ah in moobilka marxuumka uu ka bixiyo jaajarka kiisana uu gashto taasi oo keentay inay isqabtaan eedeysanaha iyo marxuumka waxaana kala dhex galay askartii ku sugneed goobtaasi eedeysanaha oo aad u carooday ayaa iska dhigay inuu ka tegay goobtaasi isagoo fariistay meel aan ka fogeyn daqiiqada kadib ayuuna arkay marxuumka oo u soo baxay suuli waxaana uu ku furay kuna hubsaday xabado baas ahaa oo uu geeriyooday marxuum maxamed faarax cabdi waana 5tii bishii 9aad ee sanadkan abaara 8dii fiidnimo أنا مقالدة حالة كصوب بحياة تلفون أنا بإيه لما مقالدة وصل دونته مركز تلفون مقالدة وصل دونته يركض ما يعني أسمع قوانين بمركورة أنا مقالدة تلفون دب وقت سوقاتي ير أسلوب تقدر سنة الرجل اللي حدا ويل ماشي جوا كتر سنة أو حدا نيو تلفون يدي بقمارة كده حدا نيو تلفون ما حس كم جار شقة قرر بقى يعرف حدا أصلا يقول حدا مكاساس ده المركز فلادو وبلا وبونا تاع تلفون ما يدي إنه فلادو وبلا marka ninkan ani asma kaamroon oo wax yar caytan yarkan kala dhimahay cooda qeylidna daawart waralkii waxay u aflagadeeyada inaan ku aflagadeeyana madax ka jara wada wiil muduga marka saas ani asay ma ka boqonay kii ku isdeegan bani as marro kala aamusnay yar kala ambulance noo wado ciidankiina ka tirsan darbale oo waxba hub wadana aqordina oo arko ay imaado xooda maxmuudow ragami ka badiyeen ka soo tago idaaneyo qorigay garabka soo gashta anoo ninka soo dab ka xiro yarkan oo dhimahay inoo oo istaago xagga kala u boodo qorig xabad oo raacsaday oo xabad baas ugu suuraday kuwa kalena xabaday ugu soo rideen anna markaas nafteeda difaaca xabada ku riday inta joogtay horta buuqana maxaa ka bilowday buuq yarkaan ka bilowday taleefankayga dib dhaha deegaanka Xaaji Cali shabeellada yarkaan kala buuq ka bilowday taleefankayga dib dhaha aniga soo kala aamusnay ninkan kala mulkamooda wada aflagado ugu bilaaway inuu xabada ugu soo riday anna nafteeda ka difaaca sabab maxaa dhacay xabad mar lagu rido maxaa keenay xabada asay ugu soo riday aflagado ku door ii geystay ninoo aamusay ninkan murmay taleefankayga dib dhaha hadalkeeno dhibsahaybo aamus warti waraan walaalkii waxay u aflagadeeyada inaan ku aflagadeeyana madax ka jibiyo wadaabile arkalo asaga asxaabtiisa la socdeen oo 5 qof gaarayaan yarkan darbalka ciidankeena ka tirsanaa magaalada bis asaajo waxa isku ciidanna asaga ay imaadeen inuu soo baxo taleefan qaadana hargan ka soo dhaxbaxay ka badan yihiin oo ma fahantii qorigay ka qaadana qorigay garabka soo gashtay ninkii soo daba kacay anoo ninkii oo darbalkii soo daba kacaybo xabada oo ninkan ugu soo bilaw dhimaha kadib yarkii oo darbalkeena ka tirsanaa waa iga cararay aan kaliya meesha istaga xabada ugu soo wada furan aan xabada ku riday xabadayna ku dhinteen tii kala taashaka iga jiraan maxamuud adiga ciidanka ka tirsantaa ciidanka xoog dalka guuto 28 Abu Cubayda ayagana asluub waa adiga colka ka tirsanayd maxaa iskin dhexgeli colkaaga adiga kalmeel deganna magaalada anagana geeska ka deganna ayagana geeska degayn ee magaalada taleefana iyo wax walba loo soo doontaa magaalada isku qabanay askartii la socotay marxuumka oo habeenkaasi ka badbaaday rasaas uu eedeysanaha dhinacooda u riday markii uu dilay marxuumka ayaa lagu dhageystay fadhigan adi inta joogto markaasina wax u dhaceen afar qofood ayaa meesha ku joornay macallin marxuumta dhimanaya nintan ayaa noo yimid xabaarta dambo meesha waxay ahayd meel jaajar ah oo taleefanada lagu jaajaraysto marxuumta ayo taleefanta jaajarkiis uu jiray ninta markuu yimid wuxuu dhahay jaajar ha laysiiyo walaalo jaajarka musliin tirnaadaan afarteen halkan jaajar suuna meeshan waa furun koronto ma laha halkii moobil waxa lagu jaajaraya lacag saa'id ma fahanti musliin tirnaadaan xoog ay damcay inuu bixiyo jaajarkii marxuumta waa la qabsay markaas kuma siinay oo jaajarkii waa tala celinay markaan tala celinay abaare murmeen warnaataan dhahnay saxaaw sharma wadataan dhahnay adi ma qaleeb sidaa banaan intaan waa soo baxay marka meesha aan joogna abaarka dambe nintii marxuumta jaajarka uu socdo marxuumta ayaa soo baxay 15 daqiiqo kadib markuu soo baxay muddo 3 daqiiqo inta la gaarin marxuumta isla markii uu soo baxay ayaan waxa maqalnay xabada baasa xabadii baas markaa maqalnay hal mar istaagay ayaan islaanay waa fadhina Soomaa istaagay ayaan islaanay ninkan uu horeeyay oo istaagay waxa uu ahaa 3 marqaati mid kamid ah
baas markaan maqalnay baas labaad anigana loo soo dilay maxaan sameynayna qof baas loo soo dilay waa inuu fadhiistaa soo maaha tii istaadi baas marka loo soo dilay dhinaca uu isu tuuray waartaa marka banaanta u soo baxnay waxaan aragnay saaxiibkeena oo meedaha oo meesha yaalo saddexda caad ayuu watay oo biyo ku watay musqusha inuu aado saddexlihii qoreedii labada meel ay kala yaaleen macallin marxuunta iyo ninkaan oo sii ordaayay oo luuq isla markii galay yaa dilay marka saaxiibkaa saaxiibtay waxaa dilay maxamed siidow marka maxamed sidow muxuu ka caraysan yahay muxuu ka caraysan yahay wallaahi wixii hore u dhexeeyay ma sheegi karaane balse marxuunta wuxuu ninkan waa isqabsadeen waa murmeen ka dambana waan tala celinay si bini aadanimo ah ninkan waa bixinay waxaan moodayay inuu baxay waa baxay soo maa abaarka dambana xabadaa maqlanay ninkan sii orday laba luuq sii galay wali markuu sii orday dad shacabka ay isu dhiday si asir loo xabadeynay micnaha naad shacab isu aadina mar qof nin shacab isu aadina anaka shacabka miyaan xabadeynayna marka waa may sama waa fiirinay meesha uu galaayo waa ka daba galnay xiridiisu dalaq dhahay waxaan la wadaadnay saraakiisheenay waxaan dhahnay qof ayaa nala dilay ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana dilay askari military ka tirsan oo xirada noo dhow degan waatana ninka meesha ku jira marxuunta intuu yaalaa anoo imaado saraakiilay saraakiishu waa noo imaadeen beedkii la fiiriyay xabadii ku dhacay la fiiriyay waa la sabiray ninka dilma taqaanina nalay inta ku jiraan aan xiradiisa labada xiro isu dhawaayeen waa la baxay waa la soo waday asii meedkii hal mar la soo kiciyay ninkan waxay wada doodeen marxuumka ma ahayn Soomaa fakti hore waxay wada doodeen ay marxuumta jaajir telefoonka uu jiro ayuu damcay xoogna kula baxo marxuumtan kadib waa sicilay xoolay ma xaqaad kartaa wadaade walaalo xoolay edit xoolay inta uu dhido tala celin saaxib jaajirka malii telefoonka malii meelaha jaajar u raasayaan dhaananiyo tuulada waa badan tahay eedeysanaha marka uu baxay waad xambada maqasheen kadib xambada ka dibiriteen Soomaa si u qabataan xabada aan ka aragnaa may ka dibiriteen Soomaa si u qabataan ma jiro nin shacab soo aadinay ma xabada ka dibiridi kartaa sababta ugu dibiridi wayseen shacab isku aadiyay shacab ayuu soo aadiyay ha naafta jidka maray shacab isku aadi lahaydeen waa ka dibiridi leena Soomaa wallahi galma xabada adigu waa maqashay kaliya Soomaa baas hal mar maqlaanay marxuumka markay xabada ku dhaceysay uma aadan jeedin Soomaaliya uma aadan jeedin ayda ku dhufatay ma aadan arkin Soomaa may adinka koobta joogteen marxuumka intuu baxay sababo u baxay ma garanaysa Soomaa waa ku sheegay masquul aad saddex la biyo watay masquul aad marxuumta koobta xamada kula dhacda masquusha agteeda ma ahayn Soomaa banaan ahayd jidkii dilidii masquusha ku aadanta guulidii oo masquul u aad lahay ay ku aadan yahay marxuumta iyo meesha ka soo baxay adi inta joogtay seen wax u dhaceen aniga barti waa isku sugnaay mudan gudaha ayaa ku jira dilkna falka banaanka ka dhacay baasa ka war halay koodi xabada baas oo socdaan saana dhan xabadii fiiri isla wadadii la aheeday nin sii dhacay aragnay nin kortaagan yar kortaagan isla markaana uu baxin baason uu soo celiyay waa astoon anaga oo markaas dabada la baxay inuu baxsado oo rabay anagana waa soo deganay isla markii aad dawraacnay mudan xeradii oo galay rabooda siinay shaqada askarnimada waajibkiisa asaas gudanay ninkana falka gacanta as waajib asaana qirtay dilkaasna asaa geystay baas ma iska bilaaban leh baas maxaa ka horreeyay macna baaska maxaa ka horreeyay horta mobeela jaajar uu jiray woo imaanay yarkaan soo u socday telefoonka saaxib yarkaan ay isku dhagay yarkee yarka marxuumka dhimanayo way murmeen ka bacdu aad dhaxaadina waa kala qabnay ninkaan oo iska baxay abaar si loo jooday yarka kale marxuumka masquul aaday wadadii ku kulmeen saasaan maleena xabadiina saasay ku dhaceen madan isla asaga inuu dilba kasa ku gaateen asoo kortaagan oo kortaagna saas sandaqad ugu soo bixin oo kortaagnaa nin oo anagana arkay oo baasna uu soo celiyay aaston nafsadeen ka badbaadin markaas oo dabada la baxaysay aad daba galnay looqa xirada uu ku taalo bogoladka xirada oo galay abeena ahayd 2 saac iyo bar amal jaajarka yaa lahaa jaajarka baraaba lahay baraabe yar kala waay telefoonka ku jiray yaa lahaa marxuumka uu jiray ha telefoonka marxuumka iyo eedeysanaha meesha isku markay isku afdhaafeen eedeysanaha wuxuu iska dhigay qof baxay Soomaa ha waa baxay muddo intee leeg u dhaxaysay markuu baxay eedeysanaha iyo marxuumka markuu musqusha aaday muddo 15 daqiiqo miyaaba 20 daqiiqo u dhaxaysay marxuumku markuu banaanka u soo baxay wax qori muuti ha qori uuti qorigiis wax ma ka dhacin qoriis maya idinka xabaduhu idinku soo riday qof ma wax ku noqday maya darbiga qabsadeen sabab uu idin xabadina anagana inaa asiga qabanaa warninbe falkii uu geystay inuu baxsado isku dayay sideedan u qabanin uu idin xabaday ha maxamed xuseen sidow eedeysanaha hadda meesha joogo waa baxay wadaga tagay Soomaa ha waxa ka daba baxay marxuumka Soomaa marxuumka wax badan u dhaxeeyay
هاي ما يبسان كهرباء مرحوم كده بحي سوما ما كده وبحن عبار أو دحيسي أصاب بحن محمد سيدو عبار كبعد يو بحكن كله محمد سيدو iyo marxuumka goobta isku rasaasaynaayeen goobtii taagtaag ku ka dhacay maaha Soomaa maaha waxaan sheegtay in laba baas la furay labada baas midna marxuumka riday midna ninka adeegsanaha riday Soomaa mid marxuumka abaas ku loo dhuftay mid kalena anagana uu soo riday marxuum qorigiisa waxan bada kama dhicin wax ka xabad kama dhicin maqribkii aan waxaan ka soo baxnay taliskayaga idinkoo ah annagoo afar ah ani waxaan deganahay meel la yiraahdo xabaalaha ku xaaji hore koobaad ka mid ahay waa buur yar oo u dhow tuulada taliskana kama foga meesha waa soo raacnay waxaan dhananay oo casho iyo waxaan doonaynaa taleefanada waa soo dabaysaynaa waa dareemi kartaa askari furan jooga taliya dhibkiisa sidii aan ku soo baxnay waxaa imaanay tuulada xaaji cali la yiraahdo afartayadii oo isla socota waxaan u imaanay meel aan taleefanada ka dabaysan jirnay markaas muhiim madayada koobaad ma ahayn hunguri laakiin taleefanada dib laan naga ahay taleefanadii dabaan u helnay meel sandaqa jaajar ah oo dad heer deegaan macnaha aan la macrifatnay oo saabuunta iyo shaambada iyo garxiirkay aan ka gadano oo deegaan ah taleefanadii ayadii afartaydii taleefan ee dabka ay noogu jiraan ayaa waxaa noo yimid ninkaasaa noo imaaday markuu noo imaahayay taleefanadeedii afarteeda taleefan marxuumka iyo saddexdeedan kale taleefanadeeda dabaa noogu jiray markuu noo soo galay ninkan soo socday xarig jaajar oo marxuumka ugu jiray maxaa farxaan cabdi suudiya la yiraahdo yarka taleefankiisa ugu jiray oo wuxuu sameeyay oo kala baxay kiisiyo wuxuu ku gashtay qasab oo damca macnaha inuu ku gashto isku day afartayadii macnaha meesha joogtay asagii aan la wada hadalnay waxaan saaxiibow waxaan waa askar ninaan qori haysan dacaylaha meeshaan ma joogo fawdada iyo handadaada nagadaa ninkan wax yar kadib uu iska baxay asii marxuumka waa wada murmeen xarig jaajarkaas awgiis markuu naga tegay waxaan dhahnay waa baxaynaa ninkaasaa casho noo doonay nin la yaraado mukhtaar casho marxuumka oo noogu diray waa wada casheen afartayadii marxuumka dhimanaya iyo saddexdayada markaan wada casheynay marxuumka wuxuu oranayay baraha waa baxaynaa taleefanadeeda waxa waaye difaacaygaan ka gaaraynaa xilligan kadib ninkasta waqti uu leeyahay aan nafarkayga xataa isku meel ma wada deganin macnaha saddexdoodan marxuumka iyo labadan kale oo marqaatiga isku meel ma deganin taliska ay ka degan yihiin aniga hore koobaadaan ka mid ahay xabaalaha abku xaaji buur la yiraahdo deganahay kaliya rabo meeshaan aado marxuumka wuxuu yiri waxa sugniyahow markii ninkan uu naga tagay iyo qadar 15 daqiiqo u dhaxeeyay waa baxaynaa sug musqulaan galay caawida biyo rusii qaatay oo soo baxay banaanka uu tagay abaarado oo isdahay musqusha gal laba baasaan maqalnay labada baas hadaan maqalnay soo istaagitaankii ninkii ugu horeeyay labadan in macnaha waaba xabad xabad dhulka u dhigteen anaa istaagay maxay taa macnaha iridda markaan soo marayna baas kale ay qabsada aniga waa caafimaad qabaa alxamdulillah annaha waa ka saaniga hadlay ninkan aragtidayda aniga arkay waxay ahayd marxuumka oo jiifa oo meeyda ninkan oo dul taagan iyo marxuumka qorigiisa halkaas iska yaalo iyo caagidii biyaha ayadoo halkaas iska daadayda iyo luuq oo isla dhigay kadib annaga waxaan sameynay saraakiishaydii islaadganay tali ururkaygii markaasna xukumayaan aan raboodkii la wadaagay aan askari أنا لك دلي وحنا قدلي قال لي أبو عبيد أو ملتير كترسم تيجي ورك مركان لو ذاقي واو ماضي نكان قاعن كالقليي أنا يرد معنا نكان سو مر بالله وجبحة تليس كيسة ماشي كدواي أنا كتلس كاي وكشي الشيء تلاقيه يجي أسرع سراكيشي كويجي كويسي أكل من نكان وحواي سريع أور أمبلاس لو صار أو لقد دوب فيديو أولي جاجر أنا كنت لي تاسوا بين جاجر كواحد إسكال هاي أنا مرحوم كوجو جري وأن سي مرحوم كا إلى ونحرسته مركم مسقول هذا يقرقي سقط سما قرقي سقرف كوجو جري سبب قري قف مسقول هذا يو أو قات مش مجري سما ماشي مال فرو ماشي فرو واي ما فهمت هبينا ويت هاي
marxuumka eedeysanaha sababtay isku dileen taas anu ma cadeey karo asbaabtay isku dileen iyo wax hore uga dhaxay anu ma aqaan laakiinse muhiimadda markii aan ka soo qaado macnaha jaajarkaas aniga aan lahaay milkiyadeeda ina Macalin Axmeda oo wiilkaas walaalkay marxuumka uu ku dabeysay ya darteeda u dilaan dhihi karaa aniga wax kale tumuusan dilin marka marxuumka qorigiisa xamad kama dhicin saas maxkamadu sheegaysaa ha waxaa sheegtay 2 baas inay dhaceen 3 baas dhacday aniga 2 baas kuma dhihin 3 baas dhacday 3 baas mid xaqiina u soo dhacay Soomaa ha labada waa naga horeeyay midna marxuumka kullee dabcan waa kuwii marxuumka lagu dilay labada baas waa kuwii marxuumka lagu dilay baasna marxuumka ku dhacay baaska kale laba baas ninka lagu hawo ku jabiyaaday ma fahanti laba baas oo saas macnaa xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ayaa garmaqalkan ku soo bandhigay cadeemo muhiim u ah kiiskan iyo sawir gacmeed lagu muujiyay sidoo dilku u dhacay hoggaanka baarista dambiyada booliska ee CID baarihii ay u xilsaareen kiiskan xidig la shardi ayaa garsoorka la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristii uu sameeyay maxkamad sharafta intaan ku guda jiray baaritaanka dacwadeedkan waxa ay noo soo baxday koow inuu dhacay faldambiyeedkaasna geystay eedeysana maxamed xuseen siidow isla markaana uu si kas u dilay marxuumka lagu magacaabo maxamed faarax cabdi oo wax uu ka galabsaday jirin ulajeedku u dilna ay ahayd jaajarka moobilka maxay ugu diiday isla markaana wax uu gargaar caafimaad u fidin ma jirin mudane gudoomiye ku-xigeenka xiraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida dhamme cabdibaasid madaale ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah qisaasta marxuumka waxaa intaa dheer mudane gudoomiye maxkamadda horteeda waxaan ka cadeynay inuu dilkaas si bareera u geystay xabado baasana uu ku furay marxuumka markii nimankii askarta ahaa oo marxuumka la joogay ay kala celiyeen asagii marxuumka la dhahay waa qaldan tahay ee goobtan ka tag askari muddo 15 daqiiqo ah ama 20 daqiiqo ku dhawaad ayuu wuxuu ugu dhakanayay banaanka muusan tagin xeradiisii ma aadin meel goob kale jaajarka ma raadsan banaanka ayuu ugu dhakanayay ugu dambeyn wuxuu fursad ku helay marxuumkii oo iridda ka soo baxay goobtii wuxuu la fariistay intuu jilibka u dhigtay ayuu baas ku furay mar labaad uu celiyay marxuumkii wuuna ku hubsaday wuuna dilay marxuumkii isla goobtii xabadaha ugu la dhaceen ayuu ku nafbaxay intaas ku muusan eekaan eedeysana waxaas banaanka isku dayayna u soo baxaan markhaatiyaasha maxkamadda hor keennay oo waqtigaas la jiray marxuumka gudaha kula jiray ayagina wuxuu ku furay xabado tirabayl ah oo tiradooda kor u dhaaftay 15 xabadood kor waa u dhaaftay halyeeyada libaaxyada xoogga dalka Soomaaliyeed noocaas uma dhaqmaan waxa ay la diriraan waa cadow lama diriraan askari kooga ah mudane gudoomiye garsooreyaal ugu dambeyn waxaan codsanayaa maxkamadda sharafta la ka codsanaya eedeysanaha dilkan bareerka asagaa la soo taagan dhahay anaa geystay qiil aan soconayn oo aan caddaynna uu wataa oo aan maxkamadda horteeda aanu ka caddeynay si shaki la'aanna aanu caddeynay dembigaas si bareera u geystay sidaa darteed maxkamadda sharafta le waxaan ka codsanayaa si xushmad ku dheehan tahay uga codsanaya marka koowaad in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga ruqseeyo lagana saaro askariga lagu magacaabo eedeysane dable xoogga maxamuud xuseen siidow ee falkan kaska ah ee bareerka ah ku dilay sarkaal xigeenkii ciidanka asluubta Soomaaliyeed ka tirsan Allah naxariistay maxamed farxaan cabdi marka labaad waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa in ay ku xukunto ciqaabta ka dhalanaysa aayadda 178 ee suuratul baqara iyo qodobada kale ah 434 iyo 195 biis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo sheegayo in qofkii qof dila xukunkiisu yahay dil maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in eedeysanaha si degdeg ah ay ugu xukunto dil toogasho ah si ay ugu tusaale qaataan ama ay cibro ugu noqoto kuwa asaga la midka ah ee bartay ama caadaystay in ay dilaan maatada askarta iyaga ka la midka ah iyo shacabka Soomaaliyeed si ay tusaale ugu noqoto in degdeg loo qisaaso laguna fuliyo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed farxaan cabdi maxkamadda sharafta waa maasantahay qareenka eedeysanaha ayaa maxkamaddu u sheegay in dilkan laga gaaray heshiis isagoo codsaday in muwakkilkiisa lagu xukumo bixinta magta marxuumka ilaahay u naxariistee eedeysanaha waa baxayay waa ka daba baxay meeshuu joogo ugu daba tegey xambadoo ku riday xambadaana looga soo jawaabay xambadihii marxuumka haleelay sidaasoo ku dhintay ilaahay u naxariistee goobta faldambiyeedku ka dhacay mudane garsooreyaal ma aha goobtii laisku dagaalay goobtii telefoonka laisku qabsaday goobtii laisku af dhaafay ma ahayn goobta laisku dagaalay waa goob ka baxsan goobtii markii dhowaad la sheegaya sababta faldambiyeedka keentay inuu ahaa xarig jaajar oo laisku qabsaday xariga jaajar oo laisku qabsaday iyo faldambiyeedkan wax shaqo iskuma laha sababtoo ah markii xariga jaajarka laisku qabsanayay
muwakilkayga ama eedeysanaha qareen ku ahay wuu watay qori xabad waa furi kari ma uusan furin si tartiibe oo wanaage ayuu ku dhammaaday xarig islaameedna kuma dagaalamayn mana qaadan karin sababa u qaatana ma jirin sidaa darteed eedeysanaha asigaa baxay waa laga daba baxay xabadaa lagu riday xabadoo ku jawaabay xabadayna marxuumkaa ku dhintay mudane gudoomiye mudane garsoorayaal arrinta kaloo meesha taalo waxay tahay warqadda caddaynta dhimashada warqadda caddaynta dhimashadu ma sheegaysa marxuumka ciddii dilay ma sheegaysa ee waxay sheegaysaa marxuumka dhimashadiisa sheegaysaa taasina shaki kama taagna marxuumka inuu dhintay sidaa daraaddeed maadaama aan la keenin wax caddayn ah oo sheegaysa inuu dilkan dil kasa ahaa mudane gudoomiye midda kaloo jirta waxay tahay xeeraalintu waxay sheegeen inuu eedeysanuhu bannaanka u taagnaa intuu marxuumka soo baxayay marxuumka inuu masquul soo aadayo eedeysanaha ayaa u sheegaya maasaa cilmuqaa'ibka yaqaan waa may eedeysanuhu cilmuqaa'ibka ma yaqaano sidaa daraaddeed sida caqli haddii la fiiriyo cid soo baxaysa ma yaqaano meesha 3 nin aad joogtay oo saaxiibbaa weliba 4 nin aad joogto oo isku ciidan ah cidda soo baxaysa mausan ogeyn ciddii soo baxdo asiga kasoo daba baxdo xambadaha kusoo riday ayuu xambada ugu jawaabay xitaa mausan aqoonin ciddaas cidday tahay mudane gudoomiye mudane garsoorayaal arrinta kaloo jirta waxay tahay heshiisaa jira heshiiskaasoo u dhaxeeya eedeysanaha ehelkiisa iyo marxuumka ehelkiisa heshiiskaas weli waa socdaa lama gaarin waa qabyo maxkamaddana waxaan ka warsugaynaa inay heshiiskaas nala sugto ilaa uu ka gabagaboobo mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maadaama aan la keenin caddayn rasmi ah oo caddaynaysa inuu dilkan dil kasa ahaa maadaama aan la keenin markhaati rasmi ah oo sheegaya sida 182 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inuu faldambiyeedkan dil kasa ahaa maadaama aan la keenin maadaama ninkan eedeysanaha aan u ahay sheeg qareenka uu yahay nin daljir ah nin ciidamada xoogga Soomaaliyeed ka dirsan nin u joogay koobta oo faldambiyeedka ka dhacayay ee ahayd koob uu difaac ugu jiray ururka argagixisada ee al-shabaab oo difaacaya dalkiisa naftiisa oo ku difaacayay ama naftiisa iyo u huray inuu difaaco dalkiisa hooyo mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maadaama aan sheeg la keenin wax caddayn ah maxkamadda sarafta waxaan ka codsanayaa awalan inay diido codsiga xafiiska xeeraalinta Soomaaliyeed xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida codsigiisa inay diido iyo inay aqbasho annaga difaaceena ah iyo inuu dilkan yahay dil kam ah sidaa daraaddeed inay ku hesho dil kam ah ayaa maxkamadda codsanaynaa intii heshiiskaas socdana ay naga warsugto heshiiska dili gaarane ay eedeysanaha aan qareen ku ahay xorriyadiisa siiso maxkamaddu waa mahadsan tahay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho